بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الكونين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجه القويم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الحاضرون وأيها المشاهدون لنا من كل مكان. maanta waa maalin khamiis ah, taariikhu waa 21 November 2019. magacaygu waa Sheekh Abdulqaadir Sheekh Maxamed Sheekh Abubakar Sheekh Soomow, afayeenka golaha guud ee culimada Soomaaliyeed. walaalayaal, waxaan jeclay isla saaki in aan la wadaago kilibka kan oo aan u jeedinayo dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan heer Muqdisho. sababtu arrintan aan maanta u duubana waxay tahay badbaadin la badbaadinayo caqiidada saxda ah iyo in dadka la isdareensiiyo in la xisaabtamo. walaalayaal, waxaa isoo gaartay oon ka arkay telefishinka qaranka soo dhigaya ninka la yiraahdo Sheekh Umul inuu biri garoonka Injineerisow rahimahullah inuu muxaadaro ku dhigayo. afkiisana uu ka yiri waxaan dhigayaa muxaadaro Muqdisho aan u dhigayo kuna saabsan waxyaabaha keena masiibooyinka iyo waxyaabaha lagu cilaaji karo. waxaan rabaa marka inaad dadka Soomaaliyeed maqlaaya ama idaawanaya aan la wadaago dhibaatooyinka waxyaabaha keena in la diraaseeyo sax waaye, wixii lagu cilaaji lahaa in la helana sax waaye, laakiin waxaa la rabaa dhibaatada noocyada horta in la isla fahmo. dhibaatada Soomaaliya haysata waxa ugu weyn badan waxa waaye dagaalada sokeeye ee dalka Soomaaliya ka dhacay ee fikirka diiniga ku dhisan. qofka waxaa la rabaa marka waxaan noo sheegaa inaan fiirino khalfiyaadkiisa. dadka Soomaaliyeed waa dad muslima boqolkiiba boqol laga soo bilaabo zimika nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxay ahayd dad sunniyiin ah, dad madhabkooda Shaafici ahaayeen. haddii ay soo xilligii madaahibta ay soo baxeen laga soo bilaabo 204 oo geeriyo Imam Shaafici 150 ayuuna dhashay. waxay ahayd dad Shaaficiyiin ah oo hijriga ah markaas ilaa maanta laga soo gaaro maanta. dad waxay ahayd ahlu sunnah oo ahlu caqiidadoodna ay tahay caqiidatu ahlu sunna wal jamaa. dad waxay ahayd ahlu dariiqa ah ilaa laga soo gaaro lixdameeyadii oo ay soo bilowdeen khawaarijtu. walaalayaal, haddaba maxay tahay sababta aan kilibkan u keenayo? waxa waaye sababaha soo socdo. kow, in laga digtoonaado iyo inaan dib taariikhda u barano iyo waxa soo socda inaan fahamnaa. ninka la yiraahdo Umul mawaaqiftiisa ila taqaaniin anuguna aan ogahay, asigu naftiisuna ogyahay. waxaa ka mid ah in uu dadka Soomaaliyeed intooda badan oo ahlu duruq ah ama suufiye ah ay agtiisa gaala ka yihiin oo masaajidooda aan midadka la geey karin laguna duka karin ayuu goobo badan ka cadeeyay. labo, wuxuu dhiirigeliyey dadka ahlu sunna wal jamaa ah meel kastay joogaan wixii khawaarijtu ay ka dishanay khudbooyinkiisa ayay kula dhiirideen. waxaan leeyahay marka masiibada ka weynta waaye in qofka caqiidada laga fasahaadiyo oo qofka caqiidadiisa la fasahaadiyo. waa ogtiin mawaaqifta Umul waxaa ka mid ah nabiga calayhi salaatu wasalaam afkaygu ma karee sidaad ogtihiin xaqiraad weyn oo geystay. in nabiga la xaqiro waxay tan waa garan kartiin. mawaaqiftiisa waxaa ka mid ah in uu xaaraan ka dhigay, inuu xalilay oo xalaal uu ka dhigay waraabaha. mawaaqiftiisa waxaa ka mid ah dowladaha Soomaaliyeed madaxweynayaasha soo bara mid ka mid ah asigoo masaajidkiisa jooga inuu dhiirigeliyey dagaalkii lagu haayay oo khawaarijta ku haysa. haddaba walaalayaal, Umul ma waxuu bedelay in suufiyada gaala ay yihiin fikirka ma ka laaban weli waa ku taagan yahay. waxaan kaloo idin sheegayaa masiibada ka weyn ma jirto. waa ta isla qaadana soo maahay in qofka caqiidada laga galo oo dadka Soomaaliyeed qof ahlu tawxiid adigu gaal u ictiqaadiso masiibo ka weyn ma jirto soo maahay. ninkii saas ku dhiirigeliyay dad badan ayaa fikirka Umul waxay ugu jiraan qabriyaal oo khawaarijtu ku laysa. kuwa badan agoomana oo maanta jooga, kuwa badan ayaan tabca karin oo dhaawac culus qaba,
kuwa badan ayaa gablamay oo wiilkoodii ama zawjkoodii ama zawjadoodii ku waayay dadkii ninka noocaas ahaa oo weli ku taagan oo aaminsan inaan gaalanahay inuu hortayna soo istaago masiibadii asugu oo keenay mid ugu weyninka badneed oo keenay oo yiraahdo weynka warama waa ayaan daro waxa ayaan daraa telefishinka qaranka oo codka dawladda ah in uu soo dhigo ruux la og yahay inuu dhiirigeliyo u ahay khawaarijta ruux la og yahay inuu suuf u yaqaan ahlusunna wal jamaa gaal inay yihiin inuu ka dhigo sheekh weyn oo birito muxaadara jeedinaya dadka reer muqdishaawiga ah waxaan rabaa umul xadala inay raasay laftiis umulow mays og tahay in badan oo reer muqdishaa ay qabri ugu jiraan kuwa kale Soomaaliyeed ugu jiraan fikirka adiga aad aaminsan tahay oo khawaarijtu ay furso mashala kuina laay adigna macalinka u heeday ma biriga ka soo laabat adigoon cadayn in suufiyada ahlusunna wal jamaa marka galo yaqaan ee suufiyadu muslimiin inay yihiin adoo ictiqaad adoo cadayn adoon ka tooba keenin adoon cafis dadban ina hortayna timaado waa ayaan daro reer muqdishaawiga waxa ina iraado muxaadarada uu qabanayo ninka la yiraahdo umul birito sida uu sheegay telefishinka qarankuna uu baahiyay ha isku hatagina sababtu maxay tahay ilaahay quraankiisa wuxuu ugu leeyahay wala tarkanu ila alladina zalamu fatamassakum an-nar wama lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun dhulmiga ha u ilana kuwa zaalimiinta oo naaru aydin taabato dhulmi dalim xalida dhulmi maxaway inna shirka la dhulm shirki wa dhulmi إلهي قرآن سعقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أنا كعلماء أنا واجب أنا صار حق إنا عدينا نقل ربع حق أن عدينا وحواي ذاتك أهل البدعة أهل الضلالة بدعة ورا ظاهر صنايا نبي عليه الصلاة والسلام حقنا مسلمين تكون قال نمحو من آية إن الله لحن هدي الله إيشه وحقور الآذو وجمع اور لبضيه ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وملحو كلي أنكو ديجا سكرنا مركو توبدي سإعلاميو مركو وحو فسهادي أو سمايو وعاربا مركا إن ددك صوماليات كبرى رجيو نيكا محاضرة به قوانا يا ونوعس ونيكا النبي عليه الصلاة والسلام حقري ونيكا فكرك خوارته وشيخه ونيكا dad badan ay qabri ugu jiraan kuwan u dhaawaceen kuwan u hanti beelaan kuwan hadda u handadan yihiin oo ahlu sunna wal jamaa oo ahlu dariiqa ah dawladda Soomaaliya fa ina ku baraarujiyo telefishinku waa meeshii aan ummadda ka hagaajinayna telefishinku waa meeshii khawaarijta lagu dirirayo telefishinku waa meeshii aqeedada sax laga faafinayo ha ka faafin aqeedada faasida xawaayay xaadibu layli hanqana qof kasto oo koofil culamaha noo dhihina qof kasto qamiis wata waa sheekha dhihina وإنا كلا برتان قفك أمدا صحراء وشيء أو مواقفتوس أين إسبدليني أو دينتي سكون أوصل إيا قفك مالين بقيت فورا وإنا كلا برتان مرة من عقيدة جورجورة عقيدة ثابتة أو كتابك يصنع كتاجن أيان رمنا وأنت أقول لنا النبي وحولي عليه الصلاة والسلام إذا ظهرت البدع وسكت العالم فعليه لعنة الله لعنة داس أنك كعررين أيام waxaan diidaynaa umadayna in la fasahaadiyo anko taagan waa idin sheegnay Allahumma hal balad madaxdan waa gaarsiina marka inaysan umul iyo wax la mid ah telefishinka qaranka u ogolaan oo ay maqlaysiin maadaama oo meeshii umada laga hanuuninayo shacabkana waa u sheego dadka ahlu bid'ah dhageysanayeen umulna waa u nasiixeeyo waxaan ku yiri walaalo horta marka ugu horeysa adiga toobakeen naftaada hagaaji ka bacdi noo imow wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala